جامعة صوماليا سمانت أديقا سرينت أقونتا سمعة شرفتيدا جامعة صوماليا سمانت أديقا سرينت أقونتا سمعة شرفتيدا سلوك لغواي علمك كسياتو سلوك لغواي علمك كسياتو سلوك لغواي علمك كسياتو سلوك لغواي علمك كسياتو سبدا ودنكينا سوقيدا تعلينتا halkuu saldhigaayo ardaydu u safrayso jaamacada Soomaal cilmiga ka siyaato ardaydu u safrayso jaamacada Soomaal cilmiga ka siyaato maanta waxa halkan isugu nimid anina ugu hambalyeynay tahay dhalinyarada waqtiga fadhiya ودمانته أخبرت هو دمانته أخبارشين وعندنا كوالي فاكرة تبيني ماستر إسكابا وطرد دولة أول إسكيتن عبين مركا هو وحان لا يهي همبالي وقال جميعش دمانته وقال كلي جامعة صوماليا ودن وحان لا يهي وحان سوكا في الجوز المدد كتاب حسين تاخر كتب الجلال في صبر فرفضان والله بعدين وحنقوم هذا عيننا يكوشن الله سبحانه وتعالى كدينا والدينتا معمل كجامعات معلمين ونسكتوا ودور مهم أكثر كل ذلك الإسلام وفرشين ما أنتوا حسوا كأنت الحلم اللي كانوا أمته وفايدين الله يدين أقوم دينا رجينا يفكرين وحلوا بهاي إن البيت اللي محتاج على تاني القيم اللي محتاج قادة horumarka iyo dibdhiska wadanka oo isbedel ku jira xilliga maanta wadanayaal marway jaamacadda Soomaaliya waxay soo saartay kaadiriin aqoon leh taasoo loo baahan yahay in looga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeed taasoo ku iman karta in aqoonyahanka loo dabaaldegayo ay qayb muhiim ah ka qaataan shaqooyinka wadanka ka socda taasoo aan hubo inay ku soo kordhin doonaan aqoon iyo khibrad waxayna ka mid yihiin mustaqbalka iyo hoggaanka bari ee wadanka mudanayaal marway jaamacadda Soomaaliya oo soo saartay aqoon-yahano hortiina fadhiya iyo kuwa kale oo horey uga qalin jabiyay iyo kuwa ku xigaba waxay gelisay dadaal naf iyo maal leh wixii xilli wadanka ku jiray marxalada aad u adag waxayna dhabarka u ridatay mas'uuliyad qaran waxayna ku tala gashay inay soo saarto aqoon-yahankii badbaadin lahaa ummadda Soomaaliyeed jaamacadda Soomaaliya iyo adinkuba inta aad soo halgamayseen ujeedada hayda hadafkiina wuxuu ahaa ayadoo iyadoo la kala xasanayn wuxuu hadafku ahaa in la iftiimiyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed oo horseedka u yihiin ubadka yaryarka dhalinyarada maanta la hor joogta oo markii anagu aan qabanaynay qof waliba uu ahaa qof aan laga yaabo inuusan 18 sano gaarin laga yaabo laakiin maanta ay u badan yihiin dad qaangaar ah oo mas'uuliyiin ah oo dhisan marka hadafkaasi wuxuu ahaa hadafkii jaamacadda Soomaaliya ay lahayd inay ardada Soomaaliyeed gaarto qaangaar xagga cilmiga iyo xagga maskaxda iyo xagga caqliga iyo xagga waayo aragnimada maadaas waxaan ugu mahadcelinayaa ardada laftooda ugu mahadcelinaya maanta qalin jabinaysa haddaysan soo dadaali lahayn oo aysan soo garab istaagi lahayn macallimiintii iyo maamulkii iyo dadkii la soo halgamay maanta guusha ma aysan soo gaarin marka hambalyo waan idin leeyahay soo dhawaada arday baan ahayo ubaxii wadankaan ahayo waxaanu ordayaa dugsiyada waada waxaanu ordayaa
baanahayo محمد أبو بكر كتير سنة أرضي جامعة الصومالية وهاك قانون جبيه فقلت فيها السادس سبيشال نيرسنا كقانون جبيه وفرح سنة مات ومالي وين أنا إلو بدونين وحاول مهد علينا والدكي هو يذا يابيه إن مدح جامعة معلمين تي وقصوا برمانتي هركن سوقر في دماء وأبونا هاد علينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي وافقية عسول الشباب وحاك قانون جبيه جامعة الصومالية كلية العافيمادك qaybteeda ka tahay sare oo ku faraxsanahay 4 sano kadib inaan maanta heerkan soo gaaro darajadeeda ii tahay muddo kadib waqtiyo dheer oo adag xaalad adag inaan maanta heerkan soo gaaro waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad Allah subxaanahu wa ta'ala ii suurtageliyay farxadda marka labaad waxaan u mahadcelinayaa hooyaday aabahay macaan heerkan soo gaarsiiyay mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadayda oo waqti dheer isla soo qaadanay 4 sano aan isla joognay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadayda qaaliga marna walaalahayga farxaddan maanta waqti badanna ila qaataan iloobi doonin waan leeyahay kun iyo kow jeer wad maasantii dhammaan waxaan u mahadcelinayaa macallimiintayda 4 sano heerkan soo gaarsiiyay iyo dhammaan macallimiinta jaamacadda Soomaaliya gaar ahaan dhiigga kulliyadda nursing oo iyo waqti badan aadan u faraxsanaa waqtigan inaan soo qaato maasantii